الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال تعالى إن هو إلا ذكر للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. sidaa walaalkeen baa inoo sheegay waxaa inaga muuqda diin jacayl, khayr jacayl, masaajid jacayl, waana nicmo weynu ilaahayna siiyey. ilahay inaan ugu mahdino weeyaan. dad badan fadhiga maskiidka ma karayaan. ilaahay jalla wacalaa wuxuu ina jeclaysiiyey inaan masaajida fadhiisanno, oon masaajida ku ictikaafno, oon ilaahay hadalkiisa aan qadarino. ma aha shaqsi waxaad u timaadeen, waa ilaahay kalaamkiisa, waa ilaahay diintiisa inaan maqallo, inaan ilaahay kalaamkiisa maqallo, oo diinteennaa macaana ilaahayna siiyey aan isku baraarujinno. waayo waa luqmaan alxakiim baa lagu yidhi diintan iyo xikmadan halkeed ka heshay baa lagu yidhi. luqmaan waa ka ilaah kaga warramay qisadiisa fi suurati luqmaan. wuxuu yidhi majlisna aniga fadhiista oo waxbaan ka qaataa, majliska kalena anaa la fadhiisto oo waxbaan siiyaa buu yidhi. yani majliskan anigaa fadhiisanayo waxbaan ka dhagaysan, waan ka baran, waan ka faa'iidaysan. majliska aan is leedahay waad dhaantaana intoon la fadhiisteen wixii aan ku dhaamaan u sheegay buu yidhi. sidaasay markaa xikmadan ilaahay igu siiyey buu yidhi. nin xakiima buu ahaa. xikmadiisa waxaa ka mid ah dardaarankii ilmihiisa uu siiyey. waa ka ilaahay qur-aanka inoogu sheegay sida ubadkiisa u tarbiyadaynayay. marka majaalistan iimaaniga ee cilmiga ee masaajida dhexdeeda inooga socda khayr badan baan ka faa'iidaysanaynaa. diinteenna macaan baan isku baraarujinaynaa. mar walba in la isku nasteexeeyo oo la isbaraarujiyo, oo caamada iyo culummadu cilaaqo wada yeeshaan, oo mujtamaca muslimiintu masaajida ay ku xidhnaadaan. waataan ku gaadhayna horumar iyo midnimo weeyaan. sidaa darteed buu nabigeenu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi diintu waa naseexo. ayay naseexo u tahay baa nebiga lagu yidhi. ilaahay sidee buu addoonku ugu naseexaynayaa? markaad ilaahay jalla wacala aad garatid, ee aad caabudid, ee cibaadadii ilaahay aad u badhax tirtid, ee dariiqadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam aad ilaahay ku caabuddo, ilaahay waad u naseexaysay. kitaabka ilaahay jalla wacalaa si aad ugu naseexayn, say diintu kitaabka naseexo ugu tahay. marka qur-aanka ilaahay la barto, ee la akhriyo, ee la tadabburo aayaadkiisa, ee qur-aanka ilaahay jalla wacalaa marka la akhrisanaya laga fikiro, ee wixii qur-aanku macruuf uu ku farayna aad la timaadid, wixii munkar ee qur-aanku uu kaa reebana aad ka reebtoonaatid, wixii qur-aanku xallilayna aad xalaashatid, wuxuu qur-aanku xarimayna aad xaaraan u aragtid. aad qur-aanka ilaahay baratod ummadda aad bartid, sidii loo fidin lahaa, loo bari lahaa, loogu dhaqmi lahaa, layskugu xakumi lahaana aad ka shaqaysid. nacam, kitaabka ilahay waad u nasteexaysay. rasuulkiisa muxamed calayhi salaatu wasalaam si aad ugu nasteexaynaysaa rasuulka ilaahay. haddaad rasuulkiisa adeecdid oo wixii wanaagii nebigu ku farayna aad la timaadid
wixii munkar iyo bidc iyo khuraafaad iyo shirkiyaadana aad ka reebtoonaatid waad u nasteexaysa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam waatii nabigeennu uu jeclaa inuu mar walba ummadiisa ka arko waxau nebigu jeclaa inuu arko ummadiisoo ilaahay caabudaysa ummadiisoo ilaahay baryaysa ummadiisoo ilaahay rajaynaysa ummadda u socota sidii ilaahay uu rabay markuu arko nebigu uu farxi jiray calayhi salaatu wasalaam a'immada muslimiinta seed ugu nasteexaynaysaa haddaad taaca lagaa helo samci wataaca liuli lamri intaanad ku arkin wax sharciga ilaahay jalla wacalaa ay kaga baxayaan ood u sabirto ood u ducayso ood wixii macruufa aad ku adeecdo waad u nasteexaysa caamada muslimiinta seed ugu nasteexaynaysaa haddaad qur-aanka ilaahay soo dejiyo diinta naseexada addiinu nasiixa buu nebigu yidhi waa jawaamicu lkalim diintu waxay naseexo caamada ugu tahay waxa weeyaan markaad xaqi ilaahay aad garatid ee xuquuqdii bini aadamkana aad iska ilaalisid ee ixsaan lagaa helo ee dadka dabeecad wanaagsan aad kula dhaqantid ee wanaag adigu aad u samaysid dhibtay kuu geysanayaanna aad iska cafidid kii ku wanaajiyena wuxuu nebigu yidhi kii ku xumeeyana wanaaji kii ku dulmiyana iska cafi buu nebigu yidhi ka wixiisa kaa xarimana waxaaga sii kama aragtaane xumaan kugu sameeyan adigu wanaag u samee diintaas diinteenna islaamka laga bilaabo ilaahay xuquuqdiisii ilaa khalqiga ilaahay kugula abuuray ee kula degan xaqoogii diinta kuu sheegaysa haddaad ku dhaqanto noloshaadii adduunyada waxaad ka samaysatay jannay adduunyadu kuu noqonaysaa janno imaam ghazaali raxmatullaahi calayhi ayaa odhan jiray jannada adduunyadu waa ilaahay macrifadiisa jannada aakhiraduna waa ilaahay aragtidiisa jannada adduunyada sirta nolosha dadku maanta ayay raadinayaan qaar lacag bay ka raadinayaan qaar oqoon bay ka raadinayaan qaar aqallay ka raadinayaan qaar masab bay ka raadinayaan qaar dhoof bay ka raadinayaan sirta nolosha waxay ku sheegeen culimmadii rabbaaniyiinta ahayd jannada adduunyadu waa ilaahay macrifadiisa waa inaad garataa ilaahay garo garashadeed garanaysa ilaahay garashadii nebi maxamed iyo saxaabadu alla ay garteen waa inaad garashadaasa ayaa micyaaruulmacrifa ilaahay macrifadiisa micyaarka la doonay ummaddu inay gaadho waa iimaankii nebi maxamed ilaahay qalbigiisa uu dhigay iyo iimaankii saxaabadu nebiga ay ka qaateen taasaa micyaaruulmacrifa la yidhaha micyaaruuliimaan waalmu'minuuna kullun aamana billaah وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير إنه صحابة إيمانكوغو هلك اللدوني إنه قاري قرآنك إلهي كشيكي وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها إلهي قلبي وغوحو لقي كلمة التقوى ابن عباس وحيري وكلمة التوحيد ويان كلمة التوحيد وكانوا أحق بها وأهلها بإلهي inaan kalmada iimaaniga ikhlaaska qalbigooga inaan ku galladaysannoon qalbigooga dhignana baa ilaahay yidhi ehel bay u haayeenoo xaqna way u lahaayeen wayna u qalmeen baa ilaahay yidhi waidaa qiila lahum annaasu aaminuu kamaa aamana annaas ay asxaabu muxamed sal allahu calayh wasalam sida kuwaas ilaahay u rumeeyeen marka u rumeeye la yidhaahda baa ilaahay yidhi sida kuwaas ilaahay u garteen ilaahay u garta kuwa mithaalka loo soo qaadanaya waa asxaabtii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam marka xuquuqda ilaahay nagu leeyahay xaqa ugu horeeya waa maxay waa ilaahay macrifadiisa jannada adduunyaduna waa ilaahay garo jannada aakhiraduna waa ilaahay aragtidiisa oo nabigeennu calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisa waa kii ku yidhi markay mu'miniintu ay jannada ay galaan ayaa ilaahay jalla wacala ku odhan doonaa turiiduuna shay-an asiidukum ma rabtaan ma aragtaane waxaan jannadan ahayn oo iniga maqan oon iniigu daro markaasay mu'miniintii jannada la geliyay odhanayaan alam tubayid wujuuhana yaa rabbi miyaanad wajiyaalkayga noo iftiimin watunajjinaa min annaar naartaadiina miyaanad naga badbaadin ood naga ilaalin watudkhilna aljanna jannadaadiina miyaanadna siinin ma wax ka maqan intaas oo ka baxsan oo nicmadan ka weyn baa hadhay markaasaa la odhan doonaa haa fayakshifu alxijaab deedna markaasaa ilaahay kashfiga ilaahay iska qaadaya xijaabka famaa uctuu shay-an axabba ilayhim min annadari ilaa rabbihim buu nebigu yidhi ahla aljannaha lama siinin waxagooga looga kalgacaylo badan yahay ilaahay tabaaraka wa tacaala jamaalkiisa iyo kamaalkiisa daawashadiisa jannadii dhannayd bay halmaamayaan jannadii bay iloobayaan naciimtii jannada ay halmaamayaan marka ilaahay wejigiisa iyo daatadiisa iyo quruxdiisa iyo kamaalkiisa markay arkaan
لذلك علماء الربانيين waxay yiraahdeen war adduunyada ninkii janno doonayo waa ilaahay garo garashada Soomaalidu ilaahay ay taqaano maaha tala doonayo waa garashadii saxaabadu ay ilaahay u yaqaaneen Soomaalidu ilaahay waa naqaanaa kooran laakiin miskiidka markuu ka baxo waxa uu doonus kaga hadlay dadkeena maanta waxaad moodaa miskiidka markay soo galaan in la yiraahdo muslim baa tahay dibadda markuu u baxana waxaad moodaa halku kabaha ku gashanayo ayuu diintiisina ku reebaa war masaajidka markaad soo gasho si aad ilaahay uga baqayso ee muslimiinta u salaamayso ee muslimiinta u ixtiraamayso ee dadka aad ugu naxariisanayso ee miskiidka xaqiisa aad u ilaalinaysid ee laba miskiidka dhexdeeda adduunyo kaga sheekaysan hadaad aragto aad u leedahay war meesha waa miskiid ilaahay ka xishooda soo ma nidhaa mid miskiidka wax ku iibinaya hadii la arkana waxa leeyahay war meesha waa miskiid dibadda ula baa waxaad iibinaysid qof baahan hadii miskiidka laga arkana waa u naxariisanayna diinta masaajidka dhexdeeda aad ku haysatid ayaa la doonayaa in dibadda aad ula baxdo diinta ilaahay naga doonayo ee ilaahay aad ugu nasteexayn ee nabi maxamed aad ugu nasteexayn ee aymada muslimiinta ugu nasteexayn waxa weeyaan waa diinta markaad miskiidka soo gasho aad danaynaysid ee jeceshahay ee quraanka akhrisanaysid ee ducaysanaysid ee muslimiinta ixtiraamaysid ee culimada si fiican aad u salaamaysid ee culimada aad wax ka dhageysanaysid ee miskiidka miskiin markaad ku aragtana aad ugu naxariisanaysid ee miskiidka dadka aad ku ixtiraamaysid diintaas la rabaa in dibadda ula baxdo maaha sheekada dibadda taala miskiidka la soo gale bal waxa la doonayaa diinta masaajida inoo taala in dibadda ula baxno dibadda ku muujina la inaga doonayaa masaajidka ayaa la magaaladana hada huwa sida aad u leedahay miskiidkan ilaahay baa leh markaad iman dhar fiican baad u soo qaadan waa soo tahaaro qaadan kabahaaga meel fiican baad dhigan dadkana waad salaami si adaab iyo ixtiraam la miskiidka ku soo gali waa ducaysan oo baahidaada ilaahay baad u sheegan nin taajira ayaa miskiidka soo galo ducaysanayay nin ay qaraabo yihiin oo baahnaa ayaa markaa aqalkiisii buu ku waayay xafiiskiisina markuu tagan waa laga celiyaa wuxuu yidhi miskiidkee buu ku tukadaayo miskiidka halkaa ku yaalo ku tukadaa baa la yidhi masaajidkii buu u dhex fadhiistay markaa dee ninkii taajirkii dad muxsiniina iska jiro ilaahay ku xidhan moogtahay oo ilaahay cilaaqa la leh iska alla barya markaas kiina albaabka intuu ka baxay buu dibaddu ku sugayaa ilaa dhinacu ka soo galay buu arkayay markaasuu wareegaayo markaasuu arka ninkuu ducaysanaya haddana uu yar wareegaayo ninkuu weli ducaysanayo salaad sunna intuu tukado iska alla baryaaya markuu ka soo baxay buu ku yidhi baahida adig ku hayseed la alla barya maxay tahay buu ku yidhi annaka yahayd buu yidhi inaan meelahan ku baryootanne adigu waad haysataa ee maxaad gacmaha la taagtaagi manakaadna kaga dhumanaysaa meesha soo bax buu ya allah ya muslim taajirku ilaahay buu u baahan yahay miskiinkuna ilaahay buu u baahan yahay madaxdu ilaahay bay u baahan yihiin dhalinyaradu ilaahay bay u baahan yihiin shucuubtu ilaahay bay u baahan tahay ilaahay bini aadamku lamxata cayn kama marmi karaan ilaahay waan u baahannahay lidaalika masaajidka diinta aad ku dhaxaysatid ayaa la doonayaa inaad dibadda ula baxdo ood garataa sidaad masaajidkan aad ugaga cabsanaysa ilaahay aad ugu dhex baryaysay eed bini aadanka xaqiisana aad iskaga ilaalinaysay ee sheekada adduunyada aad iskaga ilaalinaysay ee haddaad aragtay mid telefoonkii masaajidka dhexdeeda ku hadlaya aad u leedahay war meeshu waa miskiida dibadda ula baxaad u leedahay ayaa la doonayaa bannaanka markaad u baxdana inaad naftaada sida u muraaqabayso oo tidhaadid ilaahay bay arkaya ilaahay bay maqlaya yaay arkaya ilaahay la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latif al-khabir khalqigiisa meel kastay joogaan ka u jeeday arkaya waa ilaahay haba ilaahay kama qarsoon يعلم سر وأخفى
وحلابتها كجرة وأوجيه walaalkay adiga sirtayna dhaxmartay ilaahay waa og yahay Safwan bin Umayyah ayaa Umar bin Wahab ninka la oran jiray ayagoo marka labadooduba mushrikiina oo Makka ay joogan waa zamankii nabigeena kaleey salaatu wassalaam waqcadii dagaalkii Badar baa laga soo noqday 7 gaaladana waa laga laayay 7 gaala ana nabigu waa qafasho uu xidho uu qaatay labadanna waa qaraabo Umar bin Wahab inankiisii wuxuu ku jiraa 7 kala xidhay Madiina loo qaatay buu ku jiraa xilli waqti dhahira ay tahay oo magaalada Makka waa magaalo kullu dadku ay kala seexdeen ayaa labadoodii baa meel wada fadhiistay dhagax agteeda wada fadhiisteen markaasay ka soo qaateen waqcadii dagaalkii Badar dhibtii loo geystay iyo jabkii ku dhacay marka Umar bin Wahab baa yiri hadaan maanta anigu aan heli lahaa dhibta Maxamed uu noo geystay iyo guusha Maxamed maanta uu naga helay tu aanu adkeysan karna ma ahine sumcadii Quraysheed buu dilay hadaan heli lahaa maanta deyn la igu leeyahay cid loo raaco ubadkayga inay iga dayacmaan aan ka baqayna cid iga kafaala qaad hadaan heli lahaa magaalada Madiina intoon tago xeelada ku tagana anu maanta waan haystaayo inankayga baa iga xidhan intu sabaan oran lahaaye Maxamed aniga soo khaarijin lahaa buu yiri Safwan bin Umayyah ayaa ka faa'iideysto yiri ma samayn kartaa haa waan samayn karaa ciyaalkaagana aniga ii keen oo ciyaalkayga ka mid noqonayaan deynka lagu leeyahay aniga halay soo raac buu ka yiri waa labadoodu kaliya Makka iyo Madiina masaafada u dhaxaysana waa taqaanaan la 400 kilometer oo soo socday aalaadkan zamankan imika isku turtuurayna Facebook iyo WhatsApp iyo balaayajin ma jirin zamankaas وصو سعودي مدينة صو قال عمر بن وهب سوى سيفتي سجاني قارن مر اللي مركو عمر بن الخطاب بايري وعمر بن وهب ها شيطان من شياطين قريش وياني سيفتي نواكا جاني قارن قرت كسيتي أردو نبي إلى علي يقول نبي نواك جوج نبي كإلى علي صلى الله عليه وسلم شرق مو سعودي خير ما سعودي مركزو يا رسول الله يقول يقول النبي الله عمر بن وهب صو قال المقالة تسامحن عمر ها مركب النبي يقول يسوق لي الله سوق لي حاضر تمدي بوكيدو وحانو إمدي إنك يجي أصير وقعنتي إنك جرو إنك أكتي إن أتكو هيستان إن إحسان ليس ما يسان وان دون يي إلا يتسنى وان دون يبيدي وكوض هذا الله مركب النبي يقول سيفتنا غورت كسيتا محيطة هذا وعود قبحها الله بور إلهي هبا الدلية سيفتنه ما وحبين نوتر تيبور دقال كي بدر إيادو تن وضنو سعودية تضباتنا نقل لا يتضباتنا نقصوا قفاشا نقصوا حريما مركب النبي يقول فريسة بوري أرنك ما هارك هذا صعود أرنك هذا صعود أنا كاغا ورمي وفريست هذه هي صفوان بن أمية ساعد مركي هلكا حلقا أحد مال هبلايات فريستين مكة markaasaad soo qaadateen dagaalkii Badar dhibtii leeyni geystay markaasaad tiri hadan heli lahaa deynkayga cid maanta loo raaco ubadkaygana aanu dhiibo iga kafiil noqoto hadan heli lahaa Madiina intoon tagaan Maxamed aan kaga soo takhalusi lahaa fursadii buu ka faa'iideysto isaguna deynkiina uu ka qaaday ubadkaagiina uu ku dayactiray ee arrinkaadu socotay kaabo haaye kanaad hadda horteeda ku sheeganaysa maaha anigana ima dili kartid Ilaahay baa ilaaliyo rasuulku ku yiri يا نبي جوجا ورمي الله جوجا ورمي مركز نك يا أبي مركز والله يا محمد والله بنكون دارته إله حقي سأل نوجي يرد سدوان بيننا إني ورك إلهي وجبريل كوجو صور دي بيننا وان بيننا إني وأنا الصدا هذا عدو وهذا الكعدو دكتي ويانه ورك يهرين شيء ووحبك كمجران ورك هذا بأديك وأتريبا أنا الصحة عد وركا إيجا كاسوه الرئيسو كو شاكتنا مجرتو لبدا عندنا صدحينيس مجرتو إلا الله إلهي مويان إلهي بان كوكو داريه بودي أنو قنوا كو رومين أديقاني إلهي نوار رومين التوحيد كي يقربو كودي فالكي بو كنقر إلهي كواحد دويدا كدعايا كأقوى إلهي وحلابت هذا كجرة ككورقب وإلهي الشهادة نيني وحركتو إلهي أمر قيسي أباهن تهي
dhagtaadu inay wax maqasho ilaahay amarkiisay u baahan tahay ilaahay tabaaraka wa tacaala inuu adiga wax ku tuso ka indho u baahan ma gacantaas kaga haysan bas ilaahay isaga ka taliya koonka tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatan hatab امرأة أبي لهب أيها النبي أن أوتمد عليه الصلاة والسلام يضرب دقح سدته أبي بكر بأوتمد وهل كان فرديا رسولكم واقف فرديا صلى الله عليه وسلم أبو بكر يا رسولكم لنا عسكو هيان مركز إلى هذا هي أبو بكر هو صاحبك ما نو إليه النار بتكون دميني دونته وقبل يجي يقول صدري قبل بقرآن كواي ستاموكت أبو بكر رسولك إيجا هذا ما أنت محمد أنا وأنرك لها بيتري بقى حيسك أنستي ماذا حن بشخصين لها بيتري مركز كم نقطة أبو بكر نبي ساوي يا رسول الله ما ينكو أركين ما أنا أرجع يقول أركي لهيد بإلهك قادر يقول إنه هيبل محو حكو أركا إيش وحكو أركا من لنا هاي ما يأمر كإلهي وحكو أركا دكتو وحكو مغلا ما دكتو أمر كإلهي بهو بانتاين مقشو لوك تادو إنه سعوت إلهي أمر كيسيو باهنتا خالق وإلهي marka ilaahay macrifadiisu waa waajib qof kasto muslim ah laga raba ilaahay inuu dhabu garto tasarrufaadka caalamka ilaahay bas kale marka shayga ugu horeeya bini aadanka lagu waajibi waa ilaahay macrifadiisa diintuna nasiixadeedu halkaas ay ka bilaabanta lillah kun abdan lillah ilaahay adoonkiisa oo dhaba noqo خلاصة القرآن مركا علماء كور رمين خلاصة الأديان وحلي وحي الدين سماذا كسود دكتي أردن خلاصة دي وحلقة دي القرآن كريم كا قرآن كريم كي بالله سو خلاصة سورة الفاتحة خلاصة دي القرآن كلقة دي سورة الفاتحة يلا خلاصة لبدا عوض علماء سكو كينين إياك نعبد وإياك نستعين خلاص قسمت الصلاة بيني وبين عبدي إلهي جل وعلا واك قرآن كلها صلاة وانو قيبية أنجي أدونك أياك لقيب سني وصلاة وسورة الفاتحة مقعيق ويان سورة الفاتحة هذا صلاة بالليلة فاتحة الليلة القرآن بالليلة 7 المثاني بالليلة سورة داس وسورة النبي قولي والذي نفس محمد بيده ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلها إله محمد أبو ريما كدارته سورة داس سورة لمدة إنجيل لكم يسودقين فرقان لكم توراة لكم يسودقين قرآن كريم كان سورة لمدكم مجرد رسولكم يري علامة ابن قيم الجوزي رحمه الله وحيري قرآن كردن بمركان يغني وحاو شرح يا وسورة فاتحة سورة فاتحة وحي إيدنا كسو أرتي إياك نعبد وإياك نستعين وأمركم أضنك أوليه بسم الله الرحمن الرحيم مركا ترادد الحمد لله رب العالمين مركو أضنك يرادو إلهي بالحمدني عبدي أضنك يجيب يقوم مهديي الرحمن الرحيم مركا ترادنا أثنى علي عبدي إلهي بالأضنك يجيب أماني مالك يوم الدين مركا ترادنا مجدني عبدي أضنك يجيب وينيي إياك نعبد وإياك نستعين مركا ترادنا إلهي بال هذا بيني وبين عبدي تاسياني أضنك نقد حيسا الحمد لله رب العالمين مركا تري حمدني عبدي إلهي بالأضنك يجيب حمدي الرحمن الرحيم مركا ترادنا الرحمن والله الرحمة ديسو أدونك أنت اللي جوكتي خلق قردن أي وذا قاعدين ويان الرحيم إن حريستي سبنك قيامنا مؤمنين تخاصك وقدق ويان أثنى علي عبدي أدونك وي أماني بإلهي لي هي مالك يوم الدين مركا ترادنا يوم الدين ويوم البعث والنشور مالك إلهي ملكك يطلب إسكالها هايو مركا ترادنا وحو إلهي لي هي مجدني عبدي أدونك وي وينيي إياك نعبد وإياك نستعين مركا ترادنا إلهي باكل هذا بيني وبين عبدي تاسياني أدونك نقد حيسا وهاقاقي أدقون أي عبد وأدونك يجي دبا ينقو أنا كالمها يجي قرقارك يقول دا
sidaan doonaya yeel sida doonaysan ana ku yeelay sirta noloshu halka bay ku jirtaa dhoof ha ka raadin qaxooti ha ka raadin hay'ad loo shaqo tagana ha ka raadin wadankeena uga shaqo fiican waa ka hay'ad u shaqo taga hay'ad buu hebel la shaqeeyo hay'ad wadagii islaantii heblaayo labadoodii wiil jaamacadda qalin jabiyeen hay'ad baa markiiba madaxa qaadatay madaxa hore hay'adu ka qaadatay يا مسكين يا مسكين عبد الله بن حذافة رضي الله عنه markii boqorkii Ruum soo xiray waxa loo bandhigay laba shay in boqortooyada Ruumta la kala badh la siiyo oo diinta islaamka uu ka baxo saxaabi jaliila tilmiid min talaamiid Muhammad alayhi salatu wassalam qisiiskii baa ku yiri ciidanka ninka wata waa nabi maxamed ardaydiisii arday kamida hanaga dilin nasraaniyada u bandhig waxa li wuxuu diinta ku doorsan karana hal la siiyo si nasaarada islaamka ugu socota oo sadun aan sabiilillaah ugu noqdo laakiin waxayna ka warqabin nabi maxamed saxaabadiisu iimaankoogu carabka ma dul yaalo iimaankoogu qalbigu dul yaala halku dul yaala qalbiga wa alzamahum كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها إيمانك الصحابة ماها من عربك الدنيا الله من ما أدية لا دافسن كرماها ومن قلبك إيمانك فريستي وين إلهي كتعلق سن هو يا بقرك ما كل تاين النصرانية ده سوا قلي بقرتوي ده نكال بركة بنكسينه مركز وقصلي وعند بقرتوي ده هذا أردم ما يسترونه وحبل لقى الريبين يا بقرتوي ده عربي أي هاي ستو haddii halka la ii dhigo oo la igu yiraahdo diinta islaamka ka baxo dib ugu noqo wallahi inaan yeelin buu kay wallahi ma fa'altu buu طرفة عين diinta islaamka ka baxo iskaga noqo waxa soo mulkiyeena qaado ma yeelayo buu boqorkii baa ku yiri waan ku dilaynaa dawaaba nin xidhanahay buu haday dilaysan waa nin xidhanahay ixda alxusnayn bay sugayaan iyaku imma an-nasr wa imma ash-shahada imma inay guul helaan oo tamkiin ay helaan oo ilaahay gargaarkiisa loo ballan qaado indhahooga ku arkaan imma inay shahaado helaan ay firdaws ay tagaan loo shahaadiyad waxba uma arkaan waxa la sameeyay marka boqorkii amar wuxuu ku bixiyay dariyo waaweyn oo saliid oo karkaraya ayaa hortoodii la keenay laba nin oo muslimiintii inta la soo qaado isaguna arkaayo ayaa la diinta islaamka ka noqda kama noqon nabi yiraahdeen markaas la qabto labadii nin basda loogu tuuray qof bini aadan oo nool oo dhari saliid oo karkaraya loogu tuuray ka warrama subhanallah sagiba marka la dul keenay oo xidhan kan noqo diinta islaamka oo nasraaniyada qaado markaas uu ma qaadanayo lilma ka daadatay markaas boqorkii lagu yiri hadduu cabsoodayo waxaan u maleynayaa inuu gaaloobayo hadda markaas loo bandhigay nasraaniyadii oo ilaahay gaalow markaas uu ma gaaloobayo damaxal loo idaa lagu yiri markii dabka lagu dul keenay dheriga karkaraya hal nafba igu jirta way iga baxaysaa mar kaliya waxaan tamaniyay jirkayga inta tin ku taala in la tirin lahaa oo intaas ruuxa la igu abuuri lahaa oo mid walba inta mar halka la dul keeno ilaahay dartii iiga bixi lahayd taasaan tamaniyoon haysan oo ka ooyaya buu kaydi naf kaliya maaha kuma yalna fa in la igu abuuri lahaa oo mid walba halka inta la dul keeno ilaahay dartii iiga bixi lahayd taasaan tamaninayaa mana haysta buu kaydi boqorkii baa yidhi kan dilgiis wax noo tari maaye haska sii dayno waayay sii daaya ma kula tahay buu kaydi madaxa inaad iga dhunkan waana ku sii dayne markaas uu magaal bar madaxa ka dhunkada sagii baa isla shuuraystay shardi buu ku xidho wuxuu yidhi haddii muslimiinta ila xidhan aad ii sii daynaysid haa waan kaa dhunkan haddii kale kaa dhunkan maayo buu ku yidhi markaas uu hagaag iga dhunko markaas uu magaal bar madaxa ka dhunkada anoo asxaabtii nabi maxamed kamida ragga uu sii daynaya Soomaaliya waa ka dhunkan ilaa bariba jihaad baan ku soo celinay kala bixi mahayna ajiib asxaabta rasuul ay soo galeen Umar ibn Khattab baa soo dhaweeyay inuu gaal madaxa ka soo dhunkada ayaa u sheegay baa la yidho raggii la socday baa Umar ku yiri
عبد الله بن حذافة هدون كانوا هسلامن وهسود وين وايو قال بو مدحك صودون كذا إنك أنا هبل دبدو وبحي هبل دبدو وبحي هبل هيد بولا شغايايو اسكو توستي قال إن هذاك لا شغايسو أيا ما أنت مسلمين تهرمروا أركان قال هذا دولكوغا إنا تجنو أيا ما أنت مسلمين تهرمروا أركان إياكونا رجل السوداء يدون كشد اللجوء السوداء يبقى عمر كله قال بماذا حكى صوتهم كذا سلام عمر بايد بلوك هذه هو رئيسته سيدي يكون عادي إن هذين قال ماذا حكى دون كذا وعليك أكو سوداء يبيودي سمرك عقدة دي يريد قلبك أبشر عمر وقبي يبيودي حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة وأنا أبدأ بذلك بيودي قف كستو مسلمة وحق أبو عمر إن ماركت أنا عبد الله بن حذافة وماذا حكدون كذو أنا كبل أبو يبيودي أنا كبل أبو إلهي بيكو حنايان إسلام نمد يكو حنايان الضومة وحي النقد إلهي ومسكلة إلهي سيدي إلهي دون يمرك يالان سيدي يكون أي دون ينبع إلهي دونك ويالان سيدي دون يالان marka noloshan adduunyada macaankeega raaxadeeda jannadeeda waa ilaahay macrifadiisa alladina aamanu wa tadma'innu qulubuhum bidhikri allah ala bidhikri allah tadma'innu alqulub ilaahay alladina aamanu kuwa ilaahay rumeeyay ee qulubtoodu taacada ilaahay iyo dhikriga ilaahay ay ku xasilayso ilaahay baa yiri ala intabihu ilaahay baa inoo nasteexaynaya ilaahay baa inoo yeedhaya ilaahay baa inoo khayr miiraya ولا ينبئك مثل خبير فاسأل به خبيرا ومن أصدق من الله قيلا إلهي بكو ورما ياكله وقلبي الناس وحق لك حصل مايو أنا معرفة دو قلبي نكو حصل يا قلبي صلاة كرة حيستا قلبي قرآن كرة حيستا قلبي ذكر إلهي بكرة حيستا قلبي طاعة إلهي بكرة حيستا نعم ننا أي ماذا مسلمين تكمل آية أورنجري 5 من دواء القلب شن آية قلبك بن آدك الدويسة تلاوة القرآن بالتدبر قرآن كأول لقو أخريو تدبر إيا تفكر إيا قيام الليل إيا ساعدها ضدك أي جيفان أول لك عو إلهي تبارك وتعالى لهرجوك صدو وتضرع عند السحر إيا وقت السحر حلق السحور تأيتهي أو إلهي جل وعلا لنم مناجوده وخلاء البطن إيا علوش هذا مر البناتا وكثرة الصيام بعلم الليل نقف الصوم كي سبط ومجالسة الصالحين دتك وناكسنو لا فريست شن تاسع علماء هذين قلبي قد ويسا تلاوة القرآن بالتدبر كان القرآن ما شاء الله ونسك آخرين تدبر كيف نجمع أصحاب الرسول رضي الله عنهم لقى يا أبا هل آية القرآن سده بينك أقول علينا يا أبو برياي وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون سفيان الثوري رحمه الله آية القرآن كهبين كمركو صلاة الليل كيحد مركو قاري وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وعيسى إلهي كملينين أي كلا كل ما بنك قيامه هدو لها خير بان وطا ما خير كيسي ماها أرنتو يكوين تاي صلاة بان وطا صلاة دوال لقبت بهذا لا شك لكن مؤمن كو هلك مركو بنك قيامه إلهي هرجو اقصدو صلاة يسون كيسي ايجي مايه إله الرحمة دي صوبوا ما أنت يا قفك مؤمنك إله الرحمة دادون بوليه آيات القرآن كواه وقبريه أبي بكر الصديق رضي الله عنه مركو النبي قال نحن صدو حنونك الله دعي أي النبي قال لقوا يدي صلاة دي باتاق النبي الله مركاس النبي قال أبو بكر وشيك ومدى صلاة دها كبحيه عائشة رضي الله عنها وأكتاقني النبي قال يا كتري إن أبا بكر رجل رقيق أبو بكر وأن قلب جلع سمويان إذا قرأ القرآن غلبه البكاء هدو قرآن كأخرينا وهنتي سآيا قرآن كغالب نقطة وهذا عمر الفاروق رضي الله عنه صلاة الليل كي هبين كي مرقو مسكيت كي النبي الصوق علي وعوار كإنا ير وصورة الطور كنت كان قيام الليل كي قرآن كي سيبو دقيستي
markuu gaadhay yarkii yaraa inna cadaaba rabbika lawaaqic cadaabka rabbigaa waa kii dhici doona weeyaan aayadda cumar markii uu gaadhayna dhulkuu ku dhacay cumar binu khadaab intoo la qaaday ayaa gurigiisii la geeyey bil ku dhan buu xanuunsanaa xanuunkiisu meeshuu kaga yimidina lama ogeyn miqdaad radiyallahu canhu saxaabigii la odhan jiray miqdaad ibn al-aswad habeenkii markuu xaaskiisa ag seexdo bay tidhi sidaasuu u galgalan jiray sidaasuu habeenkii u galgalan jiray sidaas markaasay ku tiri war maxaad la galgalan maad bugtaa maad seexatidaa markaasuu odhan jiray cabsida xasuusta aan xasuusanaya naarta jahannama ayaa hurdadii raaxada iga qaaday buu odhan jiray yakhaafuun qur-aankay akhrinayeen iyaku laakiin tadabbur bay ku akhrinayeen tafakkur bay ku akhrinayeen laga yaaba hal aayadoo qur-aana habeenkaa dhan inuu ku soo jeeday nabigeennu calayhi salaatu wasalaam waa kii abi bilaal baa u yimid ee salaaddii markay gaadhay yaa rasuulallah salaaddii baa lagaa sugayaa waa nebigoo lilmada ka daadatay maalintaas garhkiisii intay dhaaftay laabtiisii qoysay halkii wejiga uu dhulka ku hayana way qoysay markaasuu nebigu ku yidhi yaa bilaal xalaytoola aayadahan qur-aanka igu soo degay waylun liman qara'ahaa walam yatafakkar ina fii khalqi asamaawaati waalardi la aayaatin liuli lalbaab aladiina yatafakkaruuna fii khalqi asamaawaat ilaa aakhiri suurati ali cimraan aayadahaasa xalay igu soo degay buu nebigu yidhi ninka aayadaha akhriya eenan tadabburin een tafakurinna kaasi uu khasaaray buu rasuulku yidhi tadabbur saddex camal markaad hayso haddaad qalbigaaga khushuucaad ka weyday bay culammadu yidhaahdeen qalbigaagaasi uu dhinsan yahay orada soo daweeye qur-aanka markaad akhriyayso iyo salaada markaad ku jirto iyo markaad ducaysanaysid qur-aanka markaad akhriyaysid iyo salaada markaad ku jirtid iyo markaad ducaysanaysid saddexdaa marxalo markaad ku jirtid haddii ilmadu ay kaa daadan weydo qalbigaaguna uu khushuuci waayo waxay culimmadu leeyihin qalbigaas uu bukaaye qalbi xanuunsan ilahay aan la hortagin qiyaam alleyl waa simaau saalixiin in habeenkii la kaco allah ina siiya kulligeen kii ka hadlaba des kii sifaadku uu wanaagsan nagala hadla ha u malin inuu isagu sidan yahay may hadalkan waxaan uga hadlayaa in aniga nolosheedii yimaadiin baan doonayaa iimaanka waxaan uga hadlaa iimaanku inuu ziyaadaan doonayaa salaada waxaan uga hadlayaa salaad xaqiiqa ilaahay inuu siiyaan doonayaa sifaadka wanaagsan waxaan uga hadlayaa sifaadka ilaahay inuu siiyaan doonayaa wallaahi umaan fadhiisadad inaan wacdiyo anigu waxaan halkaa u fadhiisa naftayda inaan wacdiyo qiyaamu leyl xasan albasri raximahullah nin asmara buu ahaa oo laakiin wejigiisa nuur ka baxayo markaasaa lagu yidhi yaa sheekh yaa abaa saciid baa lagu yidhi yaa abaa saciid waa sidee baa lagu yidhi dadka waad ka nuur weyntahe wuxuu yidhi saacadaha ay hurdaan ayaan ilaahay la munaajoodaa buuhi anigu ma doonaysaa wejigaagu inuu nuuro haa saacadaha dadku ay hurdaan kacow walow 2 rakacad ha noqotee 2 rakacad tuko walow rakacadda witridana ku darood witridaada dib u dhigo markaasaa shurafaau nnaas dadka maalqabeennada iyo dadka madaxda iyo dadka tujaartu ay dhaleen iyo wujahaau nnaas baa iman jiray majliskiisa waxaa lagu yidhi yaa xasan yaa ayuha alimaam dadku agtaada maxay ka soo doonaan baa lagu yidhi madaxdii o dhan baa ku imanaysee wuxuu yidhi waxay haystaan baan ka kaaftoomay waxaan haystana waa u baahdeen buu yidhi waxay haystaan baan macnaa adduunyadooda ma qiimeeyo anigu lacagtooda ma qiimeeyo qabyaaladooda ma qiimeeyo siyaasadooda ma qiimeeyo anigu ilaahay baan qaabilay cilmiga ayaan u jeestay aakhiradan u jeestay diintaan u jeestay jannadaan u diyaargaroobayaa naar baan ka cabsanayaa ilaahay xaggiisaan u dhaqaaqay markaa waxay haysteen markaan faraha uga qaaday waxaan haystana iyakaa u baahday buu yidhi والتضرع عند السحر مؤمنك waxaa laga rabaa habeenkii saacadaha waqti saxarka inaad ilaahay la munaajood munaajaat waa maxay munaajaat ya allah albaab kasta u xidhmay albaabkaaga furan ilaahu naxariistaadaan u baahanahay waa saacadaha ilaahay jalla wacala uu nabigu sheegay samada adduunyadu u yimaadaa nuzuulan kamaa yaliiqu bijalaalihi markaasuu ilaahay odhanaya ayaa wax weydiisanaya han siiye ayaa toobadkeena toobadda han ka aqbale ayaa dembi dhaaf doonaya dembigiisa han dhaafe haddaan saacadaha kacna ka warramo ilaahay barino soo baahi ma lihin
ساعدهاس مناجات هبن أيو النبي صلى الله عليه وسلم مركو قيام كي وبلابي أيو النبي يقول لبا آيادود أو كليا سدو وعل علينا أيو وقود الله رسولك إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عساني فإنك غفور رحيم لبدا آيادود آياتنا waxay ku jirtaa suuratul maa'ida awaakhirkeega aayadna waxay ku jirtaa suuratu ibraahim laba nabiyo ulul azmiya hadalka banka qiyaama ay ku orani doonaan ilaahay hortii tabaaraka wa taala ayu nabi maxamed adduunka dusheeda ku lahaa nabiyullaahi ciisa alayhi salaam banka qiyaama marka la joojiyo isaga hooyadii ee la keeno reer bani israa'iil oo wixii isaga dabadii yimiday oo dhan isaga hooyadii qaarkood إلهي كدكتين عابدين أيا بنك قيام الله كيني لأن واك إلهي ويديني دوني أوراني دونا يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله نبي عيسى يا عيسى حتى يا نبي الله لأوران مايو يا رسول الله لأوران مايو يا روح الله لأوران مايو عيسى ابن مريم وريا عيسى هنين مريم بالأوران دونا ماذا كوير ريبن إسرائيل أنيق يهو يدي الله سكدي إلهي نقدر نعبد ماذا كسويري قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم بنك قيام النبي عيسى اسكب بري يا أولياء مي إله حمان ذيك كهوفا كما أورنا نقول أمر كي أدي ديبتو من نقول قرسي إيه أها ربي جي إيه ربي جنو الله إلهي هنا ولا عبدنا لكن يا ربي وحن كل شيء يا intaan adduunyada joogayna marag baad iga ahayd oo adaa ila joogay oo ay arkayo in maqlaayay oo waxaan ku lahaa maqlaayay oo waxa igu sameeyeen u jeeday laakiin markii adduunyada adiga soo qaadayna adigaad maaragtaan arkayay ee hadaan cadaabeysana waa adoomahagi hadaad u naxariisanaysana amarka adiga iska leh ereyga nabi ciise banka qiyaama uu oran doono ayu nabigeena muhammad alayhi salatu wassalaam ku saliya rasuulkeena أيو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام نحريس ومديس أو نحريسنا دمقشو نبيكو ومديس أو دمقنا إريا داس نبيكو هبين لقصوا على الله هبين دم أولها يا ربي هذا العذاب السنة وأضمها يعني قريش ما أنتوا دم قريش كجولين يي من ندبانو زيارنا يي مجالس سودان وقتها يي فقارها يا كلها لا يي وان كل ميي وانو بندق الرسالة دادية waxay igu raadeen waad arkayso waad maqlaysay hadaad cadaabeysana waa adoomahagi hadaad u naxariisanaysana amarka adiga iska leh ereyga nabi ciise banka qiyaamo uu oran doono ayuu nabi maxamed adduunka dusheeda ku lahaa rabbi innahunna adlalna kathiran min annas wa ibraahim alayhi salaam ayaa isaguna yiri ya rabbi asnaamtani adoomahagi in badan bay lumiyeen xaqi ka weeciyeen faman tabi'ani fa innahu minni kaaniga iraaca إيه عقيدة إذا يدين تيدا يملد إذا يقول راعنا إله هو معي أنيك إليل ومن عصاني فإنك غفور رحيم كأي عاصي أمر كي يقدي لنا دافع نحرس بنباته بكيلي إبراهيم عليه السلام آية داس النبي كوع العلي إلهي جبريل صدر إلى يا جبريل أتق محمد عليه الصلاة والسلام الضون كي محمد أتق وعد كتر هذا وربك أو أجي هي محل أويسا مركز النبي يقول يا جبريل أمتي يا جبريل أمتي بل فيش تضرع وكاس فاطمة أويايو صفية أويايو أولادي سو أويايو عائشة وضدك وجد على أويايو أبو بكر وأصحابته وجد على كليجي أوياي رسولك وحو يا أمتي سودا يا جبريل أمتي وأمتي سوايو
من مالنتي نبينا الله صار عليه الصلاة والسلام إلى قيامها قف اللي قفك أدونك إيمانا يردن وأمد النبي محمد عليه الصلاة والسلام وأمد النبي محمد عليه الصلاة والسلام وأمة الإجابة وأمة الدعوة مسلم كنا وأمة الإجابة مسلم وأمة الإجابة قال لنا وأمة الدعوة أمتي دعوة الله قارسين لها وقال لها ما أنت نقول عيارس سيدا كبدا نقول عيارس أن نكون أنو هاي سنو إني وحيستان إني الليبانين إني الراحيسانيان إني أقع ديبادو هايستا مي يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون قرآنك إلهي كل شيء قرآنك ما هيستان راحو هرمر ما هيستان راحتي أدقى هيستا أمنيكي أدقى هيستا أرزاقدي حلاشة أدقى هيستا النمدي أدقى هيستا دينتي حشوتك إيا كلا دنبينتا كبريسي أدقى هيستا دينتا حق إلهي كو شيغيسا حق والدك كو شيغيسا حق جارك كو شيغيسا حق إسلامتا كو شيغيسا حق علمها كو شيغيسا حق صاحبك كو شيغيسا دينتي عدالة إيا كلا دنبينتا إيا اسكور هينتا كو دسنيد أدقى هيستا أدقى إن حريستا للربين النقوتنا وهذا عند سرعة ضوء الله السحري وعلى ذا يكا وحيستا تاسولي مسلم في مات مدبا حشك الأسي السعودي مدبا حشك تقيلي ورواديك حشك الأسي السعودي دعاء كون قلتني عرفيه وحصل سبيولي وقصد عظيم هاي حاكو قد دعايا عرورتي لما جامعة ويكبح لي شقي هلان لما اسكولا دي كنا عدايا وفيزا دي بدأ نحرييه إلهي كوانا ينو فيزا هود بيريك دوفان يقول سو دعاي لولي عرفك سو دعاي قلبي جاني الكوجرة أمتي اللدوني أمتي ونحرسة أدم قطو أيا ولا اندهيني واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم ولا نصيحة وحنا قعما قصنا اللي نقول سحري موبايلك فيسبوك بقى لقوا سحري بلايو يمكن عالم كمان تلقوا شيريي أمتي أردن أضيء إسلامية إنني المير عقول شينية قلبي جني قاتي أيا أمتي ما يحب اللي نقول سحري بل تدخل وذقل يا أسكور هيك ورم أو وذا تشني أو اسموري سني قال له سحر هل قيل دون يينا هذا نحريس نقطه نبينا صلى الله عليه وسلم تضرعي سوحوها يا رب أمتي أمتي يا رب أمتي جبريل عليه السلام يا إلهي صدر كيري يا محمد وحو رب العزة كيري إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك إنا أنكم سنرضيك في أمتك أمة هذا وكار لي دونا إن شاء الله واحد كرر للنقطة يا أمة هذا كي لي دونا كوكونا دبي مينا با إلهي يقول كوكونا دبي مينا يعني واحد ذيك آخرة كدب جلية أمة هذا كما يلي مينا با سدا جعشها إن أمة هذا قبنا أيا كوكو قبنا ويان ورالي جلين إلهي والنبي سرالي جلين أيو ولا سوف يعطيك ربك فترضى ورالي جلين ويان هل النبي موسى عليه السلام مركو إلهي لمنا جون يلي وما عجلك عن قومك يا موسى قال هم أولاي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى موسى عليه السلام إن ربي رالي جليو وسو دقدقي لكن نبي محمد إلهي سيبك كله ولا سوف يعطيك ربك فترضى موسى عليه السلام وكيلها رب اشرح لي صدري إن رسالة هي دين قلبي صلى الله عليه وسلم إلهي بويديستي ولكن نبي محمد سوى إلهي ويديسن أيا إلهي كيري ألم نشرح لك صدرك إبراهيم عليه السلام ولا تخزني يوم يبعثون يا رب مالك قيامها إذا الله صو ساريو أباهي قال لي مدي سهيقوه جنبولها نبي محمد إلهي بكيري يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا ومالنت إلهي نبي عيسى يا مؤمنين إلهي ونهو جنين نبي إلهي ما نبي محمد ورته قرآنك عجيب لفظك يا حرف النداء بصيغة النداء كما سأرورين بلد يا محمد
هل قرآنكم يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا يا نوح قد جادلتنا يا نوح إنه ليس من أهلك يا موسى إني اصطفيتك على الناس يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس يا زكريا إنا نبشرك يا يحيى خذ الكتاب بقوة. لكن قرآنك يا محمد كما تقول يا أيها النبي يا أيها المزمل يا أيها المدثر يا أيها الرسول طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ياسين والقرآن الحكيم. قرآنك إلهي جل وعلا تشريف ونبي الشرف يا أيها النبي كي أندرتيو يا أيها الرسول كي أنقو أندرتيو يا أيها المدثر كان ازداد يزدودوب يو ياسين والقرآن الحكيم. وتشريف هداد مقاش قرآنك والنبي عليه الصلاة والسلام إلهي تبارك وتعالى كن يدو يساقو بحيي وقوي يديو وشرفين إلهي نبي محمد وشرف يويان نبي قاسا إلهي أمدي سنقدقي نبي دارين كيله نبي أمنمك فكريا نبي عالم كأودم قنيا من مالك إلا صوص ساري إلى ساعة قيامة أي إيمان يسو واحد بشر إيمان ينبي لها يا جبريل أمتي أمتي يا جبريل أمتي إنك أنا ما أنت مسلمين ما أنت حالة ذاك ورما دولة بلغوك لقيبيي قبل بلغوك لقيبيي قبيل بلغوك لقيبيي رير بلغوك لقيبيي إنني أبتغي بمدح الاسكوك لي الدنيا تفرق أدويد أمد ويك لقيسا أدويد أمد اسكو مكانتو أمد إيمانك اسكو كانا أمد الدين اسكو كانتا أمد محبة إلهي اسكو كانتا أمد نمدا دين الإسلام اسكو كانتا أمد نمدا. ولا سوف يعطيك ربك فترضى تضرع النبي صلى الله عليه وسلم تضرع عند السحر ساعدها النبي يقول يا رب يا رب ويا ليت أبي بكر محور نجري سقنا ما حيه يدي يدليس عمر بن الخطاب بورنجري ويشبر كدولة ما النقضة ويا الله حسابي ما يشبر كقيامة وأبو بكر يا عمر يا ليتني لم تلد أم عمر لم تلد أم عمر ويدي ما حيه يدليس أبو بكر بأركجر أور ضاقيا أور كمان اسكا هذا بورنجري لا حسابي ما يسقي تضرعوا وحلق السحر كوقت السحر ساس إله لمنا جونيين قبر صالح هذا ولو رجل الرحلة العابدة رحمة الله عليها هبين جنين كذا مركي أوتمادو اسكو سوق رحسو اسكو سو هجاجسو أي عشرة وديارسو أي كو رجل ياس أي كو رجل تي يا سيدي ما دي باهنته مركاس رجل ما يعاو أنه وندالنا هو اسكت جيب سنة يايه هذا يقول اسكت سيح مركاس أي فصح كقادته أي أركت ولي من نكيج إنه جمعي أي درك يروح لبدنا أنت اسكت دكتو أي در صوف أنت حدته أقل جمال ردوش سرع يقول هاي أنت يوب حدا بأورنجرتي إلهي قد غارت النجوم يا إلهي يجيو حدقيه وأكوه ويدعنا يا بقردنا الباب ده هوست كحدان هبين كينا أصوم ذو بعدي قف كل جعلنا السرير تدوش ذو كل كليوبه يا رب أنا وهذا كأكو جعلها الباب الرحمة هذا يغفر بأورنجرتي يا رب أنا هذا كأكو جعله ليتك ترضاه والأنام غضاب وليتك تحلو والحياة مرير يا ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. رابعة العدوية رحمة الله عليه هبينك يدنا ساعدها دنبيك عجرتي أي أورنجرتي ليتك ترضاه والأنام غضاب يا ليت وقيقي خسارة يا ربي أدوك ما ذرالي يقول نغطي دا مخلوقك لي هبعي عروضانه يا ربي أدوك ما دي معاناتي ومناجاتك أقوم إيه معاناته وصلاة أقوم إيه معاناته وقرآنك أقوم إيه معاناته وطاعة أقوم إيه معاناته وذكرك أقوم إيه معاناته نولا الشيء تقول هبعي يقول قراراتي يا ربي أدو هذا ذرالي يقول نغطي بيتري وحان قرنا يا وحوى اللي بيني حقاقيان وحا أدوك الدولة لنا والتراب ترابنا التراب وبكون نغضاي قاريga quruxda badan la darkaysan waxa laga sameeyay turaab qasriga dhisar waxa laga sameeyay turaab
dharka quruxda badan leh waa turaab gabadha quruxda badan leh waa turaab ilmahaagu waa turaab lacagtaadu waa turaab cuntada macaan waa turaab wa kullu alladhi fawqa turaabi turaabu yaa laytanii kuntu turaaba waxa adduunka dulya loo dhan waa turaab turaabna waa lagu celin doonaa minha khalaqnaakum wa fiiha nuciidukum wa minha nukhrijukum taaratan ukhraa baa ilaahay yidhi ayuha albashar basharkan hadlaye socdow adigaagan dhan jirhkaagan dhan lafahaagan iyo dubkaagan iyo dhiigaagan iyo malaxdaadan iyo uuskaagan ciiddaasaa naga samaynay baa ilaahay yidhi ciiddaana nagu celini doonaa mar dambana ciidda naga soo saari doonaa baa ilaahay yidhi idaa saxa minka alwuddu bay tidhi yaa rabbi waxaan garanayaa bay tidhi haddaad adigu iga raalli noqoto ood i jeclaato wax igu adkaanaya nolosha adduunyada maba jiraan sirta nolosha waa taas waman yattaqi allaha yajcal lahu min amrihi yusra qofka ilaahay ka baqa umuurtiisa oo dhan baa ilaahay leeyahay waxaan ka dhigaynaa fuday nolosha kugu adkaan mayso qof kasta maanta warayso noloshaan fahmi lahay buu ku odhan faqiirkii u tag noloshaan fahmi lahay taajirkii u tag noloshaan fahmi lahay madaxii u tag noloshaan fahmi lahay milyoneerkii u tag noloshaan fahmi lahay kii miiga joogay noloshuu fahmi laayahay kii magaalo joogay noloshuu fahmi laayahay kii afrika joogay noloshuu fahmi laayahay kii qaaradda u tallaabay qaaradaha gaalada noloshuu fahmi laayahay kii dayaxa tagay noloshuu fahmi laayahay nin baa maalin dhaweyta qiso cajiiba ii sheegay 2017 wadanadan la isku yidhahdo G20 wadan ee adduunka ugu warshada badan maalqabeenadoodii baa shir wadanka Geneva leedahay iskugu yimaadeen dhakhtarku ka aqoon badnaa caalamkana way ku casuumadeen shirkii waxay yidhaahdeen raggani waa raggii adduunka ugu dhaqaalaha badnaa nin walba keligii buu diyaarada leeyahay rag waxaa ku jira wadano dhan ka maal badan wadano dhan qaar baa 6 wadan ka maal badan 6 dawladood isku tagay qaar ka dhaqaale badan yihiin waxay leeyihiin laakiin raaxo ma hayno maxay yidhahdeen raaxo ma hayno dawooyin badan waad hesheen annaguna waxaan diyaar la nahay inaan nimaal gelino ee waxaad keentaan cimriga bini aadanka sidii loo biirin lahaa daawadeeda doondoon keena bay yidhahdeen cimriga waxa raaxadii naga qaaday waa dhimanaysaa taasaan hor taagan gabowgii waa la tacaalaa bay yidhahdeenoo dawooyin iyo sboor iyo waxbaan samaynaa bay yidhahdeen haye iyo cunto fiican iyo laakiin tanna hor taaganeen habeenkii ka seexan laanahay waa mawdkii xal u keena ma keeni karaan hor ma keeni karaan ma keeni karaan ma keeni karaan sirta nolosha adduunka ninka helay maanta waa ninka ilaahay macrifadiisa helay sida rabbigaa kaa doonaya adigu yeel nolosha adduunyada ilaahay baa ku fudaydin ma fahmi waayaysid nolosha adduunyada markaas wallaahi nabigeenu sal alla alay wasalam meel yar buu inaga tusay meel yar xadiis fi saxiixayn meel yar fi sunan saxaabi baa nabiga u yimid oo yaa rasuul allah markaan ilaahay aan baryaayo salligaaga ducadayda markaan afar u qaybiyo qayb baan ka dhigay ka waran buu ka yidhi markaa buu nabigu ku yidhi waa khayr haddaad ka ziyaadisaase kasii khayr badan bal xadiiska dhagaysta markaasuu saxaabiga yidhi saddex marka loo qaybiyo salligaaga qayb baa ka dhigi buu yidhi labana dee anna bashar baanoo muraadkaygan ilahay u sheegan markaa buu nabigu yidhi waa khayr fain zidta fahuwa khayrun laka haddaad biirisana kaa kasii khayr badan markaasuu yidhi saddex markaan u qaybiyo laba qaybood salligaagaan ka dhigi midna anaa baahidayda ilaah u sheegan waa khayr buu nabigu ku yidhi haddaad ka ziyaadisaase kaaga khayr badan haddana wuxuu yidhi sidaas markaasuu saxaabigii yaabo wuxuu yidhi hadduu arrinku sidaaba yahayba
ducadaydii dhannayd baa intoon halkaa iska dhigo ayaan salligaaga ku bilaabi salligaagana ku dhammayn markaa buu nabigu ku yidhi idan tukfaa hammuka wa yughfaru laka danbuka buu ka yidhi haddii markaad gacmaha ilaahay hor taagto ducadii dhannayd aad salligayga ku bilaabdo salligaygana aad ku gabagabaysidba waxa lii wixii adduunyada hammi aad lahayd oo dhan waa lagu qabtay waad heshay dembigaagina waa la dhaafay buu rasuulku ka yidhi sirta noloshu ma tahay misama halkaas laakiin indhihii lagu arkayay allah ina siiyo indhihii khayrka lagu arkayay ee qur-aanka lagu arkayay ee salliga nebiga lagu arkayay qiimihiisa ee ducooyinka nebigu nasiiye lagu arkayay indhahaas waa indhaha qalbiga allah inoo furo waxa uu nebigu ninkaa ugu jawaabay bal dhegayso haddii ducadaadii dhannayd aad salligayga ku soo koobtid adduunkan dusheeda wixii hammi humuum aad lahayd hammiga bini aadamka adduunka waa laba weeyaan mashkalad haysata uu xal u raadinayo iyo xaajo uu leeyahay oo cid u qumisa uu doonayo labadaaba wada heshay buu rasuulku ka yidhi aakhirana ma taqaana qofka muslimka waxa haysta wuxuu ka aakhira markii la hor joojiyo ilaahay waxa uu ka cabsi qabaa waa maxay war muxuu ka cabsi qabaa waa dembigina waa laga dhaafay buu rasuulku yidhi waa salligii nabigeena calayhi salaatu wasalaam ayuu nabigu noogu sheegay sirta adduunyada nolosha inay halkaa ku jirto ee sirtii aakhiraba adduunyadana wixii hammi aad lahayd oo dhan hammiguna waa labada ay dhegaysto waa niigu celine waa mashkilad ku haysata adiga oo xal aad u raadinaysid iyo xaaje aad leedahay oo cid kuu qumisa aad doonaysid ilaahay baa kuu daboolay mashaakilkiina ilaahay baa kaa faydi xaajadaadina ilaahay baa kuu qumin aakhirada hammiga ugu weynee qofka muslimka hor yaalla uu qof walba ka baqayana waa maxay waa dembigiina waa lagaa dhaafay buu rasuulku yidhi waa salliga nebiga فنكسر نبينا محمد عليه الصلاة والسلام سلقي سام بدنينا سلقي سوى مناجات علماء الإسلام بقار وحيد هذا ما ذكرك إله إلا حصى يا فل بدن مثل سلق النبي عليه الصلاة والسلام قال عياض رحمه الله في كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى وحكو شيء صلق على سكر عين فل بدنيه ما الدليل على ذلك ما لغيري وحيد هذا العلماء فوق هذا هاي إلهي النورانية دوسيي سبحان الله مركات تراديد بو نبي غوري geed baa jannada lagaaga beeraa alxamdulillah markaad tiraadid geed baa jannada lagaaga beeraa laa ilaaha illa allah markaad tiraadid geed baa jannada lagaaga beeraa allahu akbar markaad tiraadid geed baa jannada lagaaga beeraa walaakiin salliga nabiga u soo noqo man salla alayya salatan waahida salla allahu alayhi biha 10 marrat ninka aniga mar igu salliya buu nabigu yiri ee ilaahay naxariisiyo darajad ii weydiiya isagana 10 jeer buu ilaahay u naxariistaa geed jannada lagaaga beeray iyo 10 jeer ilaahay ku naxariistaa ka fadli badan لذلك نكثر صلوات النبي عليه الصلاة والسلام وإن صلي النبي نبضنا وإن المناجات ساعدها ضمبين إله لا مناجون إنه وإن النبي كصلنا عليه الصلاة والسلام وإن نوحي النبي كوينا إنك وين نقوينا دان صالحين تلا فدقوا هي صون كين لازمه صفات كاسي قفك هذو كده على علماء دوليين بإذن الله تعالى قلبي يسوع نوري ومجالسة الصالحين ذاتك وناكسنو الله فريس علماء الله فريس وحلقاتك كغيب قل وجماعة إلهي درت وسعودي مالكوغ نفتو بحين دينتك بحنايا أي الله فريسنا يعني مساجد بفريسنا يعني مسجد بجماعة كنت كنا يعني مسجد بأمض أبويا يعني مسجد بكوع اعتكافا يعني أفضل بلو مركز جماعة خارجين تو أي بحان دعوة أو بحان مساجد صلى الله عمري صوبرنا يعني أمة مسجد يكون صوحنا يعني إياكي مسجد بيكون حرمايا بحدا لبحايو مددها إيجيني مهمة الله بحاي هرتا إيج دات صالحين أدراع عيسى صالحين لا نزكي على الله أحد لكن دات قصة تلقى لي إني نفتو إصلاحيان ولا له أن أي صبر رجيان مساجد مهجورك إيه ما أنت أمدو أي كهجروتي إن مساجد أي عمران والله جماعة عدد وحضر كيسا تولوين كمرك يكون بحان مساجد قاركود دقada ariga yaka ka xaar دقada ariga yaka ka xaar bari tuula aan tagnay masaajidkii markaan tagnay imaamkii masjidka sida ilmaha yar marka la yiraahdo iskuulka dugsiga waa lagu fasaxay oo 7 cisha ciyalka la fasaxay marka la yiraahdo sidoo ilmuhu u farxo ama imtixaankii baad baastay marka la yiraahdo sidoo u farxo ayuu markuu arkay ninkii sheekh uu farxay oo ka caafariistay waa tuula yar
markaasuu jamaacadda shaah u soo kariyey biyuu u keenay maalintaan ka guuraynay tuuladiina si la yidhi ilmo yar la yidhi hooyadaabaa kaa dhimatay buu u ooyey waa ka tegi kari weyne sheekh maxaad loo ooyeysaa lilmaa ka dhaadanaysa wuxuu yidhi miskiinkaynii ooyi doona buu yidhi saddexdaa cishadii la joogteen salaada jamci baad ii camirteen dadkii baad masjidka ku soo xidheen xalaqadii baad asaasteen taariku salaagii baa masjidka soo galoon anigu aan keeni kari waayey masaajidkaynii ooyi doona buu yidhi haddaan awood yeelan lahaa maanta halkaasaan nagu dhexrin lahaa buu yidhi yaa muslim jamacadada khaarijiinta ee dacwadda alxamdulilah ininku waad inaad dhegaysataan baad u timaadeen laakiin anu culammada waxaan ku yidhi war niman yahow berigii horaa soomaalidu odhan jirtay wadaad wacdiyey waxisii baa xigta wadaad tabliiqa hadduu masjid ka wacdiyana waxaa xigta ayaa ilaahay dartii u baxaya taa waad ka naxaysaa baan u malayn ya bixitaankaasi aad baad uga naxaysaan iska dhaafna markaa man yu'wiinii man yansurunii xataa uballiqa risaalata rabbii walahum halkaa buu ka yimid bixitaankan qofka laga dalbayo inuu qofku ilaahay diinkiisa u gargaaro maaha wax mustaxdatho imika la keenay bal waa shay mansuusa weeyaan min bidaayati alamri buu nebigu ka bilaabay quraysh oo gaala ah oo mushrikiina buu nebigu intuu dul joogsado ku lahaa ayaa ii soo dhawaysanaya ayaa ii gargaaray oo gacan isiin risaalada rabbi ila soo saaray ummadda hangaadhsiiyoon jallo ugu ballan qaada 10 sannadood حج الجاهلية قريش مركي عربتو أي جاهلية حشك إيمان جرتي ابن عباس 10 سنوات النبي عليه الصلاة والسلام حجيدا جاهلية دا من الصو حج ده صو دكتي أيو النبي قصد أودل وريق جريول هيا إيه صو دوين هيا إيه كالمين هيا إيه جرجاري أو دل جيسن أو رسالة الرب إلى صو سارة إلى فدين أو جنة وقو بلن قادا مركز قبائل كقاركود كو أورنجرين aaway cashiradaadii halkay ka joogaan dad hortood iyo ka ibeeniyay bay oran jireen dad hortii iyo ka bay ibeeniyay marka maalintaas uu nabigu umada ka dalbay diinta in loo gargaaro waka quraankan ilaahay noogu sheegay nabi ciisa falamma ahassa ciisa minhum alkuf muuyiri qala man ansari ila allah hadii nabi ciisa alayhi salam xawaariyiintii isaga la socotay oo ka dalbay ayaa diinta ilaahay u gargaaray hadduu iyaga ka dalbay baa la yidhi ummadda nabi maxamed diinta inay ka shaqayso oo diinta u gargaartana ilaahay baa ka dalbay yaa ayuha aladiina aamanuu kunuu ansaar allah marka jamaacadada khaarijiinta 4 bilood bay baxayaan 4 bay baxayaan muddada ha eegine muhiimadda u baxayaan eeg wallaahi summa wallah naftooda inay islaaxiyaan bay u baxayaan inay culimada iyo cilmiga soo jeclaadaan bay u baxayaan in salaada ay soo xafidaan bay u baxayaan in walaalkooga muslimka dayacaan gacanta ay soo qabtaan oo masaajida soo galiyaan bay u baxayaan waxaan xasuustaa dhowr iyo 10 sano ka hor jamaaca magaalo ku baxday magaaladii markay ku baxeen dadkii way dhageysteen way la yaabeen waxay yiraahdeen war inniku dadkii wanaagsanaa ee masaajida amrayay baa tihiine dadka xaafadan degan ee salaada aanan tukan mid qaado jamaacada u geeya in odayaa yiri oday dariskayga oo 70 jir ah oo waligii salaad aan soo galin oo khamrigana aan habeen iyo maalin u kala saarin ayaa ila darisay hadduu igu kiin arkaano inila socdana dhibba ay qabsane waa oday dhib badane aqalkiisa sheedan iniga tilmaamiye hay soo sheegin aniga waaya wixii dhibaatay in soo gaadhana inkaas gaarsiiyay marxaba albaabkii bay garaaceen waa shantii galabnimo isagoo hurdo ka soo kacay qorradii khamriguna miiska u dul taalo islaan male ilma male waa keligii buu nool yahay dhowr iyo 70 jir saal barqadaya way ag fadhiisteen albaabkii markuu ka furay ina jamaaca nahay masaajidkan ka soo booqanay waa ku soo ziyaaranay ma ziyaarada waan aqaanay u kaadiyo buuri qolkiibu ku noqday lacag buu soo qaaday ziyaaradii wuxuu mooday qoladii tariiqadaha ee suufiyadu barigo reeraha waa ziyaaradii shaqabale keena orange imku iska dhamaataan malinba ana xaqiiqa Djibouti imku iska dhamaatay xaqiina mooyaan imka ziyarada waxa isku badishay ilaahay dartii qofka loo ziyaaranaya oo waxa badishay
ilaahay dartii baan kuu soo buuqanno kuu soo ziyaaranay waxa duyana kuma sidno waxa duyana kuma kaama doonayne khayrka jamaacada ka yar dhageysan wada dhageysanay markaasuu yaab wuxuu wardad lacag diida markay lacag ma qaadano wali inta noolahay waa qof lacag diida way ku weey maxaa tihiin ma annako adeer lacag ma qaadanee laakiin waqtiga dadka ka qaadana waqtiga 20 midhan ma nasiin kartaa soo fariista waxa lacag diida maanaba arkay buu la yaab bay ku noqotay maqto khamrigan halkan ay taala jamaacadna halkan iska fariisteen indhaha ka qabsadeen hay'ad annako jamaacad waxaan martiya magaalada Hiilayaan ka imanay dadka muslimiintan ziyaaranaynay ka bukaan u ducaynaynay ka dhibaataysan baan ogaanaynay dadka waaweyna waan soo buuqanaynay dhalinyaradana masaajidkan ugu yeedhaynay halkii hadalka markay uu furfurmay wax lacagna ma qaadataan ma qaadano oo lacagta ayay naga bixiya bil maali wa nafs bil maali naftaydi maalkayga ku soo baxnay ilaahay marka kala hadlan cadamadiisi aakhiradi noloshii dambe qabrigi qiyaamihi u fikray marka wuxuu hadalka adigu leedahay waligay ma maqal buuri waligay wax hadalka ila soo gala ma maqal buuri maxaad iga rabtaan adari sheeg lacag wadi igu diideen wax kala sheegta waxa ka rabnaa anagu laba qof aan nahay amiirkii iyo jamaacadii odayaashii miskiidkay joogaane inaad jamaacad u tagto waad soo salaantid bas intaas aan ka rabnaa ma intaas waan raaci darkii uu soo xidhay dhaladii khamriga halkii buu ka yimid quradii la socdo shaadkii jamaacada uu soo raacay wuxuu salaad ma aqaan hal waxba ma leh iska weysayso weysa ma aqaano kana ku ag fariisana sidoo sameeyo salaad ma aqaano kana ku ag tukane sidoo isagu u sujuudo rukuuc halka intii uu sameeyay ay linear iyo muusir iyo shaahid markiiba u dhigeen maqribkii baa lagu eedaamayba dadkii xaafadu way daawanayaan odayga hebel baa maanta tabliiq miskiidka soo galiyeen war tabliiq ma soo galin ilaahay baa soo galiyay يا زوجي لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم علي النبي مرقو هذا كلها دقال بودره دقال خيبر بو نبي بودره انه صبا بي يهود لكن النبي كذبها الله وحده علي اوغو ميان لا دقال لما بو كيدي لا سيده اي كنقونيا مرقا بو نبي علي دغيسه بو كيدي mid iyaka kamidoo sababtaada ilaahay ku soo hadeeyo ayaa geeligiisa asas kaga khayr badan maqsuudka qitaalku waa maxay hidaaya looga dan lahaa haddii dadku iyakoona lala dagaalamin ay diintii ka dhageysanayaan oo diintii ka qaadanayaan dagaal meesha ma imanayo ogow dacwa muqaddam ala kulli shay dacwada ka horeysa wax walba jamaacadu waxay raadeen warana kuma soo galine ilaahay baa soo galiyay daaya salaada maghrib uu la tukaday bayaankii buu la dhageystay cishaayigii buu la tukaday cishaayigii intee soo kaxay bay masjidkii keenaan hadana salaadii fajr isagoo lugihiisa ku socdo masjidka soo galay toddoba maalmood isagoo salaadii laazimay dambigii ku jirana ka dhaxbaxay tiisi baa timid oo ilaahay waa ka manna qaatay وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل الجنة فيدخلها وفي حديث النبي يقولها انت تاكين لك مركي النار توقعدو أيا إلهي جل وعلا قدرك هرقو قرنا أيا الله هرمرين دندج أعماش الجنة الله وعين تضوان مع الموضوع عبادة استي صدابا للرجل إلهي جنين وكقلي لأن خاتمات بإلهوها بأج حسن الخاتمة وشيء غالية أنك جماعة بري أنك خارجين ودنا ذا قال هذا شيء أيها الله نوشة إن مسلم أو صومالية لكن ماشي أنجونا حجر 4 كيلومتر وابو قناي إن أضيع دادي ساكو قياس الدوري اللي حدا جر مركز ويا جماعة هالكي كتير حقا يضل كيفان كيفان محاولتي ما دين ضدك مسلمين هنا سووا زيارة بس عجيب وخرج كيا نقبل حيا بالمال والنفس وفيزا ودن كان لما هلا سيادكو هشين إلهي باب بحيا رزقك هدوي ما دالكن وادي من أما عزكو كالي ما دلكو كالي محاد دونا سانينكو ده جماعة دي مسكيت كاسي جوغان إنا نرى عليهم دونين تانو مسكيت حد ما تقابل حد معلومة كلنا صلاة دايدنا إلهي بأقبولي لكن مر هداد بري ما جوغتان واحدة ها وهني مقبولي
dalkii Soomaaliya warkiisa rabaay Soomaaliya haya kaale Soomaaliya warkiisa waa lagu siinaa Soomaaliya islaamnimadan u socono u muuqatee afka Soomaaligu xiiseynaya haya namari ashuu noo yimid maalintii dambe waan soo dhaweynay nasiib jamaacada waxa la socda oday markii ay istuhudeen dadka Soomaalidu markii ay istuhudaan mid qaraabadiisa isgarteen markaas war markii hebel adiga la oran jiray ha maxaad ka shaqeysaa imika wadankan shaqo ayaa anaka noo dhiibanayay buu shaqo ma jirtee laakiin jaamacad baan dhigtaa oo dalkii markii la joogay nin jaamiciyaad ahayde aqoonta ku dhimanad biirsataa maxay tahay bal sheeg wuxuu xiriirka labada dawladood dariska ka dhaxayaan bartaa uu ilaaqa bayna duwal markaas uu ku yiri xiriirka adiga ilaahay naga dhaxay ma barataa markaas uu dhimay salaadeedu waa galab marka xiriirka adiga ilaahay naga dhaxay ma barataa markaas uu dhimay professorada jaamacadda inii dhiga xiriirka adiga ilaahay naga dhaxay ma ka hadlaan iyagoo ma yaqaanaan markaas lagu waxba ma baran baa lagu yiri xadiiska maadan maqalu nabigu leeyahay a'maaru ummati ma bayna 60 wa 70 cimr al-ghalib ka ummadayda buu nabigu yiri waa 76 inta u dhaxaysa adiguna waxa leedahay dhowr iyo 60 jir baan ahay inteed si noolan doontaa buu ka yiri salaadaydina waxa leedahay waa galab xiriirka adiga ilaahay naga dhaxayna waa daciif kuwan wax ku dhigana waxa tiri xiriirka ma yaqaanaan sidee kula tahay buu ka yiri aw aqligaaga rushdigaaga هذا الكثير بسيط يا جماعة بوتشري لكن نكى habeenkii cishaay barku tukada gurigiisii buu tagay salaadii fajr isagoo alaabtii wato jamaacada u yimiday wuxuu hadalkaad igu tiraada ma xalay ka seexan kari waayay hadalka xalay igu tiraadeen waan ka jibsan kari waayay daaciga markuu ninku dad wanaagsan u raaco ummada khayr u rajaynayo ummada wanaagayga ka fikirayo hadalkiisa ilaahay wuxuu gelinayaa ta'thir saameyn buu hadalkaagu yeelanaya hadab soo islaaxaya ummadan islaaxiga ka soo qayb qaadanaysa qaylada aan qayleyno ku badbaadeenayo inaan diinta ka wada shaqeyno wada niyooda insha Allah oo hadii la inaga dalbo inaan diinta u baxno aan baxayna wada istunfirtum fanfiru bunabiyuri habeenka jimcaha markaska ka soo qayb gala kulanka diineed bifadlillahi azza wa jalla habeenkii dhawata jimcihi baan u fiirsado masaajidku waa buuxsamaya hadii toolay zamanna dacwadu waxay soo martay xillihe jamaacadu miskiidka markay iska taagaan laga kala yaaci jiray maantana dacwadu waxay maraysaa in maraakisti halka ay joogsato afka oo ijtimaaciyadii markii la yiraahdo halkan baa lagu qaban laba sano kadib meeshii yaraatay meel kale loo guuray meeshii way yaraatay hadda anaga Djibouti waxaan maraynaa meeshii saddexaad ijtimaaci u horeeyay 92 200 qof ka soo qayb gashay 10 sano ijtimaaci miskiid markii lagu qabtay magaalada dhexda xidhantay miskiid kale weyn bay dawladdu ku deeqday dacwadii haddana kiina uu xidhmay kiina waa laga baxay banaankii magaalada loo baxay banaankii magaaladana sanadkan 40 kun qof ka soo qayb gashay ijtimaaci 40 kun qof hargeysana waa ogtihiin war khayrka baa inoo baxay khayrka ma ku darsanaa khayr hada dhageysta diinada wanaagsan noqo shaqaale diinada wanaagsan ba ka si fiican Allah inagu anfaco Allah inuu dambi dhaaf wa sallallahu alayhi wa sallam